السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منكم أنا جاست إيزي نو أصحابتك واحدة جنرال كيك يس بيبي تي في مركز جوبتان وهذا السلامة يا كسر وهذا يس بيبي تي في ويلكم تو يس بيبي تي في. برنامج عودة برنامج هذا إنه روك دوين هاي سيدا هور يقبلتين عودة برنامج كي روك دوين هاي مالمهان سفر تلحيس معنا حكومة يا عودة ما كان قارة يوروب si aan u helo waxyaabo badan xogag badan macluumaad badan waddan kasta aan tago waxaan jeclahay taariikhdiisa historigiisa wax kasta inaan sheeg maxaa la wax ka soo ogaado wax ka barto dhaqamadiisa waxay aaminsan yihiin hadda waxaan ku suganahay waddan la yiraahdo Greekland ama Greek ayaan ku sugnaa caasimadiisa waxa la yiraahdo Athens ama Athena saa u taqaaniin meelo badan baan soo marnay Turkiga waa soo marnay Istanbul Greek laftigiisa waxa waaye dhowr magaalo baan ka tagnay waddanka waa waddanka ishaag waxyaabo badan baa jira oo waddankan in ka ogeyn oo aan rabay inaan kaga sheekeeyo qaar in kaga taataabto qaarna barnaamijyadeena dambe aad ku daawan doontaan ayagoo maarkino ishaag ka bedelan sidan oo horeynta daan u gala galo waddankan la yiraahdo ishaag maxaa la yiraahdaa Greega waa waddanka labaad ee qaaradda Yurub markii laga soo tago Spain ugu dalxiiska badan sidoo kale Greek waa waddanka koowaad ee Yurub markii la yiraahdo ugu jasiiradaha badan wuxuu leeyahay jasiirado lagu sheegay 55 jasiiradood baa ku taalo jasiirado waaweyn oo caalamiya isha Santorini Morocco waa badan yihiin inta kuma soo koobi karo waxa u soo dalxiis tagtay jasiiradaha Turkiga dad lagu qiyaasay sanadkii 40 milyan oo qof ayaa soo booqata waddankan dalxiis uga timaado oo wax ma dhigi karnaa waddankan maadaama uu yahay waddan aad iyo aad u gaajeysan ishaag maxaa la la daala dhacayo shaqo la'aan iyo maarkino ishaag waxyaabo badan inkastoo Yurubtu ay caawiso haddana waa waddan waxyaabaha uu ku tiirsan yahay waxaa kamid ah ishaag maxaa la jiray dalxiiska ayaa kamid ah waddankan sidoo kale waa waddan diiniyan markii la yiraahdo culture markii la yiraahdo Yurub wadamada ugu dhaqanka adag culture-ka uu ku jiraa diinta masiixiga markii la yiraahdo waa dadkii laga soo gaaray ay kamid yihiin dadkan waddankan sidoo kale waa waddan asaga dhan 70% waddankan waa jasiirad iyo bad way waddankan 30% kale ayaa wax yar ah marka laga reebo caasimadda koowaad oo Athena ah iyo caasimadda labaad marka laga reebo inta kale waa jasiirad waddankan marka Soomaali badan ayaa ku sugan dabcan Soomaalida ku sugan deegaan maahan waa dad raba inay ka sii gudbaan ay Yurubta kale u sii tilaabaan dad badan baan aragnay oo Soomaaliyeed oo ku sugan laakiin nooma suurgelin inaan wareysi kala yeelano xaaladooda guud laakiin insha Allah taala waxaan rajaynaynaa barnaamijyada soo socda inaan kugu sii gudbi doono safarkeenu waa safar dheer meelo badan baan tagi doonaa waxyaabo badan baa jira hadda aan diyaarinay laakiin aanan weli ku guuleysan in aan soo gabagabayno marka insha Allah taala waxaan leeyahay barnaamijyo badan baan soo wadaa taariikhda ishaag maxaa la waddankan Greega ishaag maxaa la waxyaabaha uu caanka ku yahay Soomaalida qaababka u yimaadaan Soomaalida waxyaabaha ay kala kulmaan waxyaabaha ay ku haystaan mafaa'iido ku haystaan maqasaar ku haystaan more information badan baan kaga hayaa si aadan informationaas aysan ku dhaafin please hadda channelkeena ku cusub tahay subscribe meegana furo like share comment waa yes baby oo idin leh inta barnaamij noocan ku kulmi doono ha ka iloowin inaad barnaamijkeena subscribe saartid oo maasantiin hada